السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay barnaamijkan waa kii koobaad ama barnaamijkii ugu horeeyay qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxa kamid noqon doona warar cusub oo ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe Sacuudiga oo hub iyo dhaqaalaba siiyay Xuutiga si ay isaga kaashadaan ka hortagga isbahaysiga Israa'iil iyo Imaaraadka ay ku doonayaan inay ku soo galaan qaybo kamid ah dalalka Carabta iyo Badda Cas iyo Baabul Mandab. haddaba sheekadan oo ah mid aad loo hadal hayo saacadihii la soo dhaafay iyo siyaasadaha uu isticmaalayo dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. Trump oo digniin u diray mar kale Iran wada hadallada la filayo in Jimcaha ay ka dhacaan magaalada Istanbul oo iyana faahfaahin laga bixiyay kuwaasoo dhex mari doona Mareykanka iyo Iran. xaaladda guud waa sidee hadda gobolka cabsidii halkee bay gaartay wararkaas waan idin hayaa. qaybaha dambana waxaan ku hayaa safarka madaxweyne Erdogan oo bilowday isagoo ka soo degay goordhow magaalada Riyadh ee wadanka Sacuudiga. wada hadallo xasaasi ah oo halkaa ku dhex mari doona Sacuudiga iyo Turkiga kadibna isagoo usii gudbi doona Masar. haddaba wararkaas wixii ugu dambeeyay iyana waan idinla wadaagi doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta aanu kusoo gudbinaynaa inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socodsiin doona. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe arrimaha Iran iyo Mareykanka wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay. haddaba waxaa la sheegayaa in hadda wada hadallo markaa fursad la siinayo ilaa maalinka Jimcaha ah. wada hadalladaas ayay waxay ku xiran tahay waxa ay ku dambeynayso xaaladda gobolka bariga dhexe. haddii wada hadallada la isku fahmi waayo haddee waxay aadaysaa dagaal. haddii la isku fahmana xiisadu way degaysaa oo dagaalka waa ka joogsanaysaa leey. haddaba wararkii ugu dambeeyay haddaan idinla wadaago telefishinka Al-Carabiya ayaa qoray warbixin wuxuu leeyahay iyadoo caalamka oo dhan uu indhaha ku hayo maalinta Jimcaha ah ee soo socota markaas oo ay dhici doonaan wada hadallada dhex mari doona Iran iyo Mareykanka kuwaasoo ka dhici doona magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa dhanka kale waxaa la sheegayaa mas'uuliyiin inay sheegeen ilaa 6 dowladood inay markaa iyaguna ay ka soo qayb gali doonaan wada hadalladaas oo ay ku jiraan dowladaha Khaliijka iyo Turkiga si markaa arrinkan wax looga qabto oo xiisada loo dejiyo. marka waxaa leeyahay maalinta Jimcaha ay soo socotaa la ballamay. labada dhinacna way ogolaadeen inay yimaadaan. wafdiga Iran marka waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi. wafdigan kalena waxaa hogaaminaya Steve Witkoff ninka la leeyahay wada hadallada u qaabilsan Trump. marka wada hadalladaasu foolka fool ayaa la isugu hor iman doonaa. hore waadii kugu sheegay laakiin wada hadallada waxa la doonayo in laga hadlo iyo mowqifyada labada dal ay kala taagan yihiin markii la fiiriyo wax natiijo oo nafle oo wada hadallada ka soo bixi kara male. waa la isku raacsan laakiin waxa uu la doonayaa in la isku soo jiijiido dhinacyada. marka waxaa sidoo kale casuumaad loo sameeyay wada hadallada ilaa 6 dowladood oo ay ku jiraan Masar iyo Sacuudiga iyo Qatar iyo in iyaguna yimaadaan oo goobjoog ka noqdaan si markaa dhinacyada ay ugu dhiirigeliyaan in xaaladda la dejiyo oo wada hadalka fursad la siiyo. xataa markaa haddii la isfahmi waayo in mar kale loo ballamo oo wada hadalladu ay sii socdaan. warkaas marka waa cusub yahay arrinkaasu ka soo kordhay. dhanka kale Trump ayaa isaguna saakay war soo saaray. aan idin tuso wakaaladda wararka ee Anadolu waxay leedahay Trump wuxuu uga digay Iran ama digniin ayuu u diray Iran haddii aan lagu heshiin oo aysan ku heshiin wada hadallada waxaa dhici doono yiri waxyaabo xun ayaa dhici doona. وعادadiisa soo iskaan jabaa
wadahadallada haddii lagu heshiin waayo yidhi ashyaa sayi-a dhacay waxyaaba xun ayaa dhici doona macnaha dee dagaalaa qaadayaa waayo wax kale ma ku hanjabo asaga marka wadahadalladii marka wuxuu leeyahay fursadda wadahadallada waa ogolnahay wadahadallada waa in aanan ku heshiin haddaan ku heshiin wayno waa kala tagnay waa dagaala aadaynaa waaye waa tii xalay madaxweynaha iiraan isaguna uu amar ku bixiyey in wadahadallada laga qayb galo oo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu amar siiyey uu leeyahay wadahadallada hala tago ha laga qayb galo marka wadahadalladaas dhici doona jimcaha ayaa diiradda la wada saaray gobolka dhan bariga dhexe arrimahaasoo dhan waxay ku xiran yihiin amniga iyo gobolka iyo xasiloonida wadahadallada natiijada kasoo baxda natiijo wanaagsan hadday noqoto oo la isfahmo xaalku wuu degi doonaa haddii wadahadallada lagu kala boodana way soconaysaa marka dad sii falanqaynaya arrinkan ayaan arkay oo la waraysanayay oo dad khubaro ah waxay leeyihiin iiraan iyo maraykan ma aha markii ugu horreysay oo ay kulmaan isla arrimahan ayay ka hadlayeen ma ku heshiiyeen mise way ku kala tageen shirarkii ugu dambeeyey cumaan ka dhacay talyaaniga ka dhacay meel kasta ka dhacay waxaana laga wada hadlayay waxaa nin walba meeshuu ka taagaya marka waa la ogyahay maraykan israa'iila ku daaban oo marnaba aan ogolayn gantaalahan inay aragto iiraan ma seexan karna waa tii uu lahaa ninkii maaragtay mucaaradka ugu sarreeyay barnaamijka xalaan kusoo gudbiyey marka waa arkaysaan marka mushkiladda ugu weyn marka meesha jirta waxawaaye rajada laga qabi karo wadahadalladu inay guulaystaan aaday u yartahay marka maxaa furan dhanka kale albaabka kale dagaalka lee furan markasta marka waxaa leeyahay baashu waa dagaal mahurto laysbadayn doono ay leeyihin marka waa arkaynaa kolley ilaahay baa sanadtiisa meel u taallaa bini aadamku waxay rabaan ba iska sameeyaan marka waa arkaynaa qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka xasaasiga ah ee saakay warbaahintu ka hadlayso waxay tahay ninkii maxamed bin salmaan ahaa oo sacuudiga hadda hogaamiya odagu waa iska tacbaane dhaxal sugaha ah oo hadda xilkiisii haya aabihiis oo boqortooyada xukuma maxamed bin salmaan ayaa wuxuu ciyaarayaa istaraatiijiyad la yaab leh imaaraad iyo israa'iil ayaa iyaga iyo asagu ways hayaan waatay somalilan aqoonsadeen badda cas si ay halkaa saldhigyo uga samaysato israa'iil halkan baabalmandab usoo dhawaato ninkii waa fakaray maxamed bin salmaan wuxuu yidhi horta meeshan baabalmandab waxaa lafdhabar u ah xuuti ciddii xuutiga haysataa baabalmandab haysataa horta sideedaba baabalmandabna waa meesha wax soo maraan waayo khatarta nimankan xuutiga fadhiyaan ninkan marka cadaawad weynaa jirtay wuu la dagaalami jiray xuutiga waa dagaala dhex maray soo maha sacuudiga iiraanay la hadleen waxay yidhahdeen waxaan rabnaa xuutiga inuu gacan nagu siiyo maadaama annaga iyo asagu isku mowqif aan nahay maxay isku mowqif ka yihiin waxay isku mowqif ka yihiin number one in la kala gooyo yaman xuuti ma rabo waa tii qoladii kala goynta sacuudigu la diriray nagta ka saaray xuuti waa ku raaxaysanayaa xuuti wuxuu leeyahay annagu midnimadaan taageersannahay yaman ma la kala goyn karo xuuti marka hawshaas isaga mid ay ka yihiin arrinta yaman arrinta kale xuuti ma ogola israa'iil iyo imaaraad iyo waxa kan jinniga inay eeriyadan soo galaan baabalmandab wuxuu rabaa inuu meeshaa isagu ay isbaaradiisa u taallo xuuti rabaa marka ninkan marka nimankii iiraaniyiintaha kor kala socda sheekada ansaarullah lacag iyo hubaa la siiyey sacuudigaa siiyey inay heshiis galeen oo ay wada shaqaystaan hawshan aan isku mowqifka kanaan ka wada adeeganaynaa dheh inaan baddan baabalmandab iyo eeriyadeeda israa'iil lagu arkin aysan noo soo dhowaan arrinta yamanna in cid wax kala goynaysa imaaraad iyo wax kana aysan noo imaan iiraanna koray kasoo amartay ansaarullah xuutiga waxay yidhaahdeen sacuudiga la adeegta sacuudiga iiraan hadda waayada waa isku fiicayiin wax dhiba meesha ma ka jiraan marka warbixin la yaab leh oo saaka arrinkaa laga qoraan idinla wadaagayaa haddaba
jiradda la yiraahdo ra'yul yawm ayaa waxay qortay warbixin ay leedahay dhaxal sugaha amiir maxamed bin salmaan ayaa waxaa la sheegay inuu u diray dhaqaale iyo hub iyo rasaas jamaacada ansaarullah ee xuutiyiinta dalka Yemen iyagoo markaa isfaham weyn uu dhex maray Sacuudiga iyo kooxdaas jamaacada waxaa la sheegay ansaarullah inay iyagu markaa taageerayaan xukuumadda sharciga ee Yemen dhanka kalena waxaa la sheegay in ay markaa wixii ka dhacay Hadarmud iyo qoladii gooni ugoosadka ee la jabiyay inay markaa iyagu hawsha ay soo dhaweeyeen dhanka kale inay xuutigu qayb ka qaataan ilaaleynta xuduudda Sacuudiga iyo maaragtay iyo Yemen dhanka kale heshiiskan waxaa la sheegay in uu sidoo kale saameynayo arinta badda cas iyo Yemen inay markaa saameyn ku yeelanayso haddaba warbixinta way sii socotay waxaa la sheegayaa dhanka kale in Sacuudiga uu wado isfaham dhinaca Masar ah oo markaa iyo Sacuudiga isku fahmayaan arrin ku saabsan malafka Suudaan ama arinta Suudaan si markaa dhaqaale iyo hub loo siiyo dowladda sharciga ee Suudaan si loola dagaalamo maleeshiyaadka kooxda dacmu sariic ee imaaraadka u taageero sidii meesha looga saari lahaa ma ujeedaa marka waa siyaasad waaweyn u ciyaaraya ninkan la yiraahdo maxamed bin salmaan masar uu tagay masar uu la hadlay dhaqaale iyo hub ayaa waxaa la siinayaa dowladda Suudaan si loo jabiyo meesha dib dambe aan loogu arkin kooxdan imaaraadka iyo yahuudda ku daaban tahay ee la yiraahdo dacmu sariic in meesha laga sifeeyo Suudaan marka halkaasna masar uu adeegsanayaa oo shaqada u qabanayso xuduud la leh halkaas dhanka kalena iyadana xuutigii iyo Iiraan iyo hawshiisi way isfahmeen halkaasuu marka shaqada ka wadaa ninka la leeyahay maxamed bin salmaan meel ay ugu dhamaataba waxaa leeyahay siyaasad la yaab leh ayuu wiilkii la soo baxay uu isticmaalaya marka wararkaasuna waa xogo muhiim ah oo hadda ay qorayaan warbaahinta carabta oo aanu soo xiganayno qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa sheekada wali way socotaa bandiqada waxyaabo waaweyn ka socda gobolkan bariga dhexe Erdogan ayaa hadda dhow ka degay Riyaad maxamed bin salmaan iyo asaga kulan albaabada u xiran yihiin haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu ku faaqidaynaa oo kaga hadlaynaa safarka Erdogan xalayaan soo bilownay ujeedadiisa waxa ay tahay barnaamijkii xalan ku soo qaadanay haddaba maanta marka safarkii wuu bilowday Erdogan wuxuu ka soo degay Riyaad caasimadda Saudi Arabia kadib waxaa loo soo qaaday qasriga boqortooyada waxay kulan hadda ku jiraan aan idila hadlayo maxamed bin salmaan waa taan hadda ka soo sheekeynay kaartooyinka uu ciyaarayo siyaasaadka inuu Iiraan iyo Xuuti iyo la heshiiyo waxaan oo dhan waxa uu leeyahay maskaxda Erdogan waaye Erdogan hawsha dhan isku xareeyay marka shaqadii meesha ay marayso iyo wixii update-ka arrimaha gobolka bariga dhexe iyo badda cas arinta Suudaan iyo Soomaaliya iyo waxa dhan iyo Falastiin iyo xiisadan Iiraan iyo waxa soo dhan ay nimankooda hadlayaan wax yar kadib wuxuu u safri doonaa Erdogan Masar haddana oo fiirsada sheekadii Masar inay taageerto dacmu sariic ayaa hawsha halkaas maraysa maxaa hadda marka soo kordhay aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay inta aanan safarka gelin waxaa leeyahay diyaarado berqadar ah oo Turkigu leeyahay ayaa waxaa la geeyay dhanka xuduudka ayaa la geeyay Masar iyo Suudaan u dhaxeeya ayaa la geeyay leeyahay haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay oo maartay diyaaradaha laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegaysaa in diyaarado drone oo Turkigu leeyahay lagu arkay laba airport oo ku yaala xuduudka koonfureed ee Masar ee dhinaca Suudaan ma arkaysaa sheekadii marka way isku xirataay
imaaraad iyo yuhuud iyo nimankan marka waxay samaysteen 3 geesood turki sacuudi masar باكستان halkaas ay u joogtaa dhag waay marka nimankan inay meesha ka sifaan marka diyaaradihii barqadaar waaweynaa barqadaar aqanji ayaa la keenay meesha la soo dhigay sida aljazeera ay sheegayso aqanji marka maxay sameynayaan nimankan ayay nagta ka saarayaan masarna hub iyo lacag yaa u dhiibay sacuudiga si ay dawladda suudaan halka ugu gudbiso marka meesha xaalkeedu halkaas horta maraya أنا دتوسو مركا وركي وجود بيجي سفر كأردوغان أو مارتي وكتير هذا وكالة وركي أنا دول يا جورد وقرطي أو حقيقي سوي وحلا هاي أردوغان وحو جاري سعودية بوقشر رسمي أيو كتير هذا وحا سود ويجي لجو سود ويجي إيربوركا كتبنا وحا أردوغان يوفتجيسا أي آذين قصري بقرطوية إلى رادو اليمامة halkaas oo uu kula kulmi doono mas'uuliyiinta Sacuudiga marka siyaasadku waa kaas halkaas ay xaajo maraysa waa ina marka la socona adduunka waxyaabaha mar walba isbedelaya siyaasadan waa ala abugto waa siyaasa waa wax wanaagsan ba kuwii hadda isnacbanayo jugta isku haya bari saaxiibay Sacuudi iyo Xuuti ma qasanay dagaalamayeen oo Xuuti iyo Sacuudi isbaabiinayeen oo dhibaato dhexmartay hadda maanta waa saaxiibo sababtoo ah wax ka weyn ay yimid niman dhahay Yaman kala jarayna yuhuud oo meel kasta inay xarata rabto cid kasta cadow ku ah marka wixii ay yimid shiica tahay iyo sunniya tahay ma jirto cad hadda nin walba dantiisu u dagaalamaya baabal madab hadii yuhuud timaado maxaa yaala Sacuudi iyo dhulkaan oo dhan waaba go'doomayaan Sacuudi hagee wax u marayaan حقاسنا هرمس وقصتها إيران إيه مريكان أسكوايستا لبدا البابو ليه سعودي أو وحوصو مران لبدي هدي لغفر يستمحايا للسودان إيه مصر إيه وحانو لوا كداين مركا شاكدو مرقنا وحي سوكرنا برنامج كيجي وقوه الرئي أصحابي نودقل